Welcome Khabirka Official. Please don't forget subscribe, share and like. asxaabta waa idin salaamay dhammaantiina meel walba adduunkooda joogtaan waxaan idinku salaamay salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib caawa waxaan sharaxayaa cashir ku saabsan sida loo waxeeyo Paypal sidiisa waxa weeye waa akoon online ah oo aad wax kaga iibsanaysid gmailkaaga wax kaga iibsanaysid waa la yiraahdaa Paypal marka cashirkaasaan rabaa inaan sharxo akoon oo online ah waaye si online ah wax ku iibsanaysaa waxaan wax ku iibsanaysaa gmailkaaga ayaad wax ku iibsanaysaa marka cashirkii ayaan bilaabayaa marka ugu horeyso waa inaad wax tagaysaa maaragtay browserkaaga tagaysaa browserkaaga markaad tagtid oo aad soo kicisid waxaad qoraysaa halkaas waxaad ku qoraysaa paypal.com markaad ugu qoratid waxa uu kuu soo baxayaa sidaan oo kale ayuu kuu soo baxayaa markii uu kuu soo baxo waxaad leedahay sign up ayaad leedahay markii sidaas uu kuu soo baxo sign up aad leedahay sign up markaad dhihdid waa kana sign up aad leedahay sign up markaad dhihdid waxa uu kaa rabaa gmail waxa uu kaa rabaa magac iyo passwordkaad abuuraysid intaas markaad maaragtay aad samaysid hadda waxaan qoray maaragtay halkaas meeshaad ku qoran tahay email address emailka aad gelinaysaa emailka ayaad gelinaysaa hadda emailka ayaan gelinayaa emailkii markaad gelisid gmailkii markaad saas u gelisid .com halkaas waxaa lagaa rabaa magaca ayaa lagaa rabaa first name magaca ayaad gelinaysaa first name last name halkaas waxaad abuuraysaa maaragtay password ayaad abuuraysaa passwordkana waxaa la rabaa maaragtay mid adag inuu maaragtay uu noqdo si maaragtay aan loo soo dhawaan karin marka passwordka ayaad abuuraysaa hadana waa soo celinaysaa passwordkii markii maaragtay create password aad dhihdid hadana confirm baa leedahay ku soo celinaysaa kabacdi next baa leedahay waa qalad ayaa jira markii aad maaragtay saas u gelisid stebyada in la raacayo asaa kuu sheegaya marka waxaa rabaa stebyadaasina maaragtay aadan wax ka qaldin waa cashir aad u xiiso badan halkan ayaa lasoo gaaray halkan haddii aan idiin sharxo hadda aniga waxaan joogaa Uganda marka Uganda ayuu soo qabanayaa qofkii Soomaali joogana maaragtay Soomaali ayuu dooranayaa horta automatic wuxuu maaragtay wadankii aad joogtid markaas wuu automatic kugu soo saarayaa marka address 1 waxaad weeye maaragtay address 1 address 2
iyo maaragtay city iyo state village iyo postcode iyo birthday iyo number marka address 1 waxaa leedahay tusaale kale address 1 waxaa leedahay meeshaad joogta ku qoraysaa tusaale qofka Soomaali jooga u sharaxayaa address 1 wuxuu qofkii Soomaali joogo aduu maaragtay tusaale kale Muqdisho joogo kale address 1 wuxuu leeyahay maaragtay Muqdisho ayuu leeyahay address 2 wuxuu leeyahay Muqdisho meesha uu kusii joogo tusaale kale Banaadir ayuu kusii jooga Banaadirka ayuu dooranayaa city waxaa leedahay maaragtay Xamar ama Muqdisho ay kusoo celinaysaa kanna maaragtay stage haduu kusoo yiri waa sana maaragtay waa gobolka waaye gobolka halkan waxa sheegaysaa city aad markii halkan aad gelisid Muqdisho markaad gelisid halkan xaafadda ayaa gelinaysaa xaafadda maaragtay joogtid baad gelinaysaa xaafadda markaad gelisid halkan waa caasimadii aad gelinaysaa halkan waa gobolka aad joogtid maaragtay gelinaysaa Muqdisho kale Muqdisho waxaan ka sii joogaa maaragtay halkaas ka sii joogaa kabacdina gobolka maaragtay gelinaysaa Banaadir kale dad ku gelinaysaa marka postcode ma lahan Soomaaliya marka maaragtay iyadoo aad ka tagaysaa nin baa leedahay kabacdi deedkaaga qoranaysaa kabacdina lambarkaaga gelinaysaa marka hadda aniga bilaabaya hadda waxaan leeyahay halkaan kale waxaan leeyahay xaafadda ayaan gelinayaa halkaan kale waxaan leeyahay Kasanto waxaas dhan waa addressyo waaye si maaragtay address waxa la rabaa maaragtay wax been lama rabo baashan maaragtay wax online waaye wax qalad gelisid maaragtay kuma shaqeynayo marka address saxan oo maaragtay shaqeynaya la rabaa address shaqeynaya maaragtay la rabaa son marka address wax jiro maaragtay buu rabaa postcode kan hadda aan joogo postcode kiisa waxa weeye waa 0025 waqtiga aad dhalatay oo kale soo qoranaysaa waxaad leedahay tusaale oo kale kooda bisha shanaad oo kale leedahay kooda bisha shanaad 900 da ayaa kale 18 aad ka yartahay maaragtay akoonka kugu xisami maayo marka waa inaad 18 maaragtay aad ka weyn tahay waaye inaad ka weyn tahay la rabaa 993 ayaan leeyahay halkan mobile numberkii waaye mobile numberka gelinaysaa mobile numberkan waxa weeye 070 eberleh 22 lambarkii marka asaas maaragtay lambarkiida u gelisid dhamaysid waa hubinaysaa inay wax ka qaldan yihiin lama rabo in maaragtay wax ka qaldoomaan taasoo kale maaragtay aad u hubinaysaa marka asaas kale u hubisid kabacdi lambarkan waa iska hubinaysaa waayo lambarka waxa uu kusoo dhacayaa maaragtay code-ka ayuu kusoo dhacayaa marka hadii maaragtay lambar qaldan yahay maaragtay oo ama qof kale uu leeyahay kale qofkaas kale maaragtay code-ka ku dhacayaa marka waa iska hubinaysaa marka lambarka inuu ku saxsan yahay kale waa iska hubinaysaa waa cashar aad u xiiso badan star waa leedahay halkaan la yimaaday halkaan waxa uu ku yiri maaragtay credit card waa bangi card marka maaragtay aad leedahay oo kale waaye qofkii maaragtay tusaale oo kale Soomaaliya joogo kale oo Salaam bangi oo account kaliya kale wuxuu gelinayaa maaragtay kaarka lambarkiisa maaragtay oo maaragtay uu gelinaa waqtiga uu dhacayo iyo password maaragtay kaarka lambarka account-ka lambar sireedka u qarsoon oo CSC yiraahdo ayuu gelinayaa
kabacdina maaragtay maxaa okay ayuu leeyahay saas maaragtay maxaa uu ku xirmayaa. Hadda aniga maaragtay ma haysti account card ma haysti account maaragtay ma furna. Marka haduusan ii furan waxaan leeyahay maxaa later mar kale ayaan maaragtay maxaa ku xirnaa leeyahay link card later aa leedahay bangi account waa account maaragtay si online ah maaragtay maxaa waxa ugu iibsanaysaa si online ah maaragtay waxa ugu iibsanaysaa waa account aad u fiican lacagaha maaragtay maxaa oo online ka ah maaragtay hada kan oo kale hadii uusan maaragtay kugu xirneen maaragtay account maaragtay isku xirneen qod lacag paypal-kan hada lacag kugu jiro si toos ah maaragtay maxaa waxa uguma iibsan kartid ilaa maaragtay qof kale oo paypal haysto wax ka iibsan kartaa. Hadda online ka kale waxa ku shaqeeyo waa paypal-kaas waaye. Hadii uu kaar ku leeyahay ka fiican oo maaragtay maxaa kaarkaas wax ku gadanaysaa. Marka hadda waa saas maaragtay maxaa ayuu igu xirmay oo maaragtay igu shaqeeyay paypal-kii. Marka waa cashir aad u xiiso badan ha laga faa'iideysto. Waxaan maaragtay maxaa in ka codsanayaa asxaabta inaad maaragtay subscribe ii saartaan like iyo share na maaragtay ay dhahdaan wixii aan garanayo waan ii faa'iideynaya idinkana waxaa la rabaa inaad i dhiirigelisaan oo maaragtay maxaa oo like kaas iyo subscribe kaas ay igu caawisaan. Halkaan oo kale hadda active kan oo kale maaragtay waa waqtiga waxaas waaye payment send payment waa markii maaragtay oo lacag ku jirto oo lacagta u diraysid. Kani ma ahan lambar caadiga inta gelisid oo qofka ugu diraysid ma wuxuu ka duwan yahay oo kale waa Gmail wax lagu dirayaa account oo kale dad ku xiriirisid marka lacag dirtid sirtaada lama ogaanayo oo qofka maaragtay maxaa hadii maaragtay uu isku dayo dhaqdhaqaaqaaga iyo waxaas inuu ogaado ma ogaan karo maxaa yeelay waxa maaragtay wax ku diraysid baa maaragtay maxaa waa Gmail buu kuu saarayaa xogtaada la heli maayo. Hadda tusaale kale lacag markaa soo dirtid waxa xogtaada maaragtay maxaa meesha ka soo dirtay maaragtay qofkii soo diray waxaas oo dhan baa la ogaanayaa laakiin xagan oo kale maaragtay paypal-kan oo kale lama ogaanayo sirtaada ayuu kuu qarinayaa wuxuu ku leeyahay Gmail hebel ayaa intaas lacag ka heshay. Marka cashir aad u xiiso badan weeye asxaabta laga faa'iideysto subscribe na maaragtay ha la ii saaro. Marka cashirka intaas ku eegyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi